qalinka ahaa. Waa hore gurigaasi yar ee ku yaala tuulada waxaa ku noolaan jiray lamaane faqiir ah oo noloshooda ku dhacsada xirfadda kalluumaysiga. Shayga ugu qiimaha badan ee ay haysteen ayaa ahaa faraskooda xoogga badan. Qoyska saboolka ah ma lahayn wax carruur ah inkastoo ay wada noolaayeen muddo dheer. Mar kasta waxay rajayn jireen in ay dhalaan carruur. Ninkii ayaa hadlay oo ku yiri xaaskiisa, waxaan isqabnaa muddo dheer welina wax carruura ma dhalin, sidaas daraadeed gurigeena waxa uu muuqdaa mid carruur ka maran. Xaaskii ayaa ku jawaabtay, waa sidaasi, waan jeclaan lahaa in aan dhalno hal cunug. Xaqiiqdii aad bayna u fiicnaan lahayd. Markaasi kadib ninkii kalluumaystaha ahaa ayaa waxa uu aaday webiga si uu u soo kalluumaysto. Hase yeeshee maalintaasi hal kalluun waa uu heli waayay. Ninkii kalluumaystaha ahaa ayaa go'aansaday in uu isku dayo markii ugu dambeysay. Laakiin markan waxaa shabaqa u galay kalluun aad u yar. Kalluunka yar waxa uu ahaa mid leh midabka dahabiga ah isla markaana aad u dhaldhalaalaya. Kalluunkii oo hadlaya ayaa ka codsaday ninkii kalluumaystaha ahaa in uu iska sii daayo maadaama uu weli yar yahay. Ninkii kalluumaystaha ahaa ayaa aad ula yaabay in uu arko kalluun hadlaya. Si kastaba ha ahaatee ma doonaynin in uu waxyeeleeyo, marka waa uu iska sii daayay. Markii uu ku celiyay biyaha, kalluunkii ayaa kor u soo baxay oo yiri, aad baad u mahadsan tahay, waxaan kugu abaalmarin doonaa waxyaabo qiimo badan. Si la yaab leh ninkii ayaa waxa uu gacantiisa ku arkay 3 midho oo mucjiso ah oo leh midabka dahabiga ah iyo 3 kale oo midho ah oo iyagana leh midabka qalinka. Kalluunkii yaraa ayaa u sheegay kalluumaystihii in uu 2 ka mid ah midhaha uu siiyo xaaskiisa oo ay cunto. Kalluunka ayaa intaasi ku daray in 2 midho oo kale uu siiyo faraskiisa. 2 midho ee ugu dambeysana uu ku beero barxadda gurigiisa ayuu hadalkiisa ku soo gabagabeeyay. Kalluunkii yaraa, 2 midho ee ugu dambeysana ku beer barxadda gurigaaga ayuu hadalkiisa ku soo gabagabeeyay kalluunkii yaraa. Ninkii kalluumaystaha ahaa ayaa midhihii mucjisada ahaa u keenay xaaskiisa, waxayna ku dhaqaaqday in ay sameyso wixii uu u sheegay kalluunkii yaraa. Xaaskii kalluumaystaha ayaa yeelatay uur 9 bilood kadibna waxay dhashay 2 mataano ah. Mid ka mid ah 2 mataanaha waxa uu lahaa midabka dahabiga ah, halka kan kalena uu lahaa midabka qalinka ah. Lamaanaha ayaa arrintaasi aad ugu farxay. Wiilka dahabiga ah ayaa loo bixiyay Diini, halka kan kale ee midabka qalinka lehna loo bixiyay Raage. Faraskoodina waxa uu dhalay 2 faras oo kala leh midabka dahabiga iyo midabka qalinka. Geedkii qalinka ahaana waxa uu dhalay gaashaan qalin ah. Maalin maalmaha ka mid ah wiilka dahabiga ah ee lagu magacaabo Diini ayaa waalidkiisa ka codsaday in ay u ogolaadaan in uu u safro dunida si uu wax badan u soo barto. Aabihiis oo arrintaasi ka cagajiidaya ayaa yiri, laakiin wiilkayga waa khatar safar noocan oo kale ah, sidee ku xalin kartaa wax kasta adigoo kaliga ah? Diini ayaa ku jawaabay, aabbo waxba ha ka walwalin, waxaan hore u kaxaysanayaa faraska dahabiga iyo seefta. Hooyadiis ayaa soo hadashay oo tiri, laakiin sideen ku ogaan karnaa in aad bad qabto iyo in kale? Anagu waan kaa walwali doonaa. Diini ayaa yiri, haddii geedka dahabiga ah uu cagaaran yahay, taasi waxay la macno tahay in aan ku suganahay xaalad wanaagsan, laakiin haddii geedka uu yara qalalo, waxaad ogaanaysiin in xaaladeyda ay khatar ku jirto. Maxaa yeelay Diini waa ay ka go'nayd in uu baxo, sidaas daraadeed waalidkiis waa ay ka ogolaadeen. Diini waxa uu qaatay seeftii dahabiga ahayd iyo faraskiisa, waana ugu dhaqaaqay. Waxa uu aaday dhul aan la garanayn, halkaasoo uu kula kulmay oday waayeel ah, waxaana uu weydiiyay magaalada ugu dhow halka ay ka xigto. Odaygii ayaa yiri, waxaad ka gudubtaa keentan kadibna waxaad arki doontaa magaalo aad u mashquul badan, laakiin ha aadin dhulka keenta kaliga, maxaa yeelay waxaa jooga 2 nin oo tuuga ah
isla markaana damac badan, khatar inaad gasho ayaa laga yaabaa. isla markiiba waxa uu ku adkaystay in uu ka gudbo dhulka kaynta ah, khatar kasta oo ay leedahay. markuu gudaha u galay kaynta, waxaa durbadiiba kasoo horbaxday labadii tuug, iyagoo ku bilaabay in ay handadaan. waxay ku amreen in uu bixiyo xoogaa lacag ah si uu meeshan uga gudbo, balse Diini arrintaasi waa uu diiday, isagoo durbadiiba ku bilaabay dagaal adag. waxa uu ka jabiyay seefihii ay wateen labadii tuug. tuugadii ayaa isla markiiba bilaabay in ay isdhiibaan oo ay weydiistaan Diini cafis. Diini ayaa ku yiri, tuugayay xunxun, horteyda ka wareega. tuugadii ayaa goobta isaga carartay. Diini oo doonaya inuu isaga tago goobta ayaa maqlay cod gabdheed oo ka yeedhaya meel aan ka fogeyn. waxa uu u dhaqaaqay goobta uu codka ka imaanayo, waxaana uu goobtaasi ku arkay gabadh ku xiran geed. gabadhii oo qaylinaysa ayaa ka codsatay Diini in uu badbaadiyo. Diini ayaa weydiiyey gabadha in tuugada ay meesha ku xidheen iyo in kale. haa, magacayga waa Niso, waxaan kasoo jeedaa magaalada aad u socotid. anigoo maraya meel kaynta u dhow ayaa waxay afduubtay tuugada, halkan ayayna igu xidheen. markaasi kadib Diini iyo Anisa ayaa goobta ka dhaqaaqay, iyagoo kusii jeeda magaalada. waxa uu ahaa guri aan caadi ahayn, isla markaana aad u qurux badan. markii ay soo gaadheen guriga, Anisa ayaa aabaheed u sheegtay in Diini uu yahay ninkii soo badbaadiyey. sidaasi daraaddeed, Anisa aabaheed ayaa ka codsaday Diini in uu dhowr maalmood la sii joogo. dhowr maalmood oo ay sheekaysanayeen kadib, labadooda waa ay isjeclaadeen. maalin maalmaha ka mid ah, Diini ayaa ku riyooday isagoo ugaadhsanaya xayawaanka loo yaqaano deerada oo meel kaynta ku dhow joogta. subaxii dambe, Diini ayaa go'aansaday in uu aado kaynta si uu u soo ugaadhsado deerada. Anisa ayaa isku dayday in ay arrintaasi ka joojiso, balse ugu dambeyntii waa ay ka ogolaatay in uu aado ugaadhsi. markii uu soo gaadhay kayntii, durbadiiba waxa uu arkay deeradii uu riyada ku arkay. kadibna waa uu ceyrsaday deeradii ilaa iyo markii dambe ay ka noqoto mid la waayo. markii ay soo gaartay qasri qadiimi ah oo ku yaala kaynta, Diini oo faraskiisa wata ayaa gudaha u galay qasriga si uu u soo helo deeradii. markii uu gudaha u galay ayaa waxa uu arkay haweeney saaxiro ah, taasoo weydiisay cidda uu yahay. waxay sidoo kale weydiisay cidda u ogolaatay in uu soo galo qasriga. hase yeeshee, Diini ayaa u sheegay saaxiradii in uu ceyrsanayo deero oo uu doonayay in uu ugaadhsado. saaxiradii ayaa ku tiri, haa, waa adiga qofka soo cabsi geliyay deeradayda quruxda badan kadibna soo ceyrsaday. marba haddii aad soo gashay qasrigayga, ma iga baxsan kartid weliga. waxaan kaa dhigi doonaa taalo ka dhisan qasrigayga. sixiroolaydii ayaa durbadiiba adeegsatay sixirkeeda si ay Diini iyo faraskiisa uga dhigto dhagax. sixiroolaydii ayaa arrintaasi aad ugu farxday, iyadoo qoslaysa. Raage ayaa arkay in geedkii dahabiga ahaa uu sii qalalayo, isagoo durbadiiba fahmay in uu walaalkiis ku jiro khatar. Raage ayaa isla markiiba la booday gaashaankiisii qalinka ahaa, isagoo sagootiyay labadiisa waalid. goobtana waa uu kasoo dhaqaaqay. sida walaalkiis, Raage ayaa soo maray dhul cajiib ah iyo kayntii khatarta ahayd. meel kasta oo uu tago, dadka waxa uu weydiinayay walaalkiis Diini, balse waa uu waayay qof u sheegta. ugu dambeyntii waxa uu soo gaadhay guriga Anisa, isagoo weydiiyay walaalkiisii dahabiga ahaa. Anisa ayaa u sheegtay in uu dhowr maalmood uu la joogay, kadibna uu aaday kaynta si uu u soo ugaadhsado deero, laakiinse uusan ka soo laabanin ilaa iyo hadda. Raage ayaa durbadiiba u dhaqaaqay kaynta, isagoo halkaasi ku arkay deeradii.
waxa uu durbadiiba ceyrsaday deeradii, taasoo u soo carartay dhanka qasriga qadiimiga ah. Durba waxa uu arki waayay deeradii. Markii uu gudaha u galay qasrigii, Raage aad buu u naxay kadib markii uu arkay walaalkiis iyo faraskiisii oo laga dhigay dhagax. Isla markiiba goobta waxaa ka soo muuqatay saaxiradii, waxayna ku tiri, wiilka qalinka ahow, walaalka haatan waxaan ka dhigay taalo, adna waxaad ku soo biiri doontaa taalooyinkayga. Raage oo fahmay arrinta ayaa ku yiri, waa adiga qofka sidan ku sameeyay walaalkay. waad inaad si dhaqso ah ugu celisaa walaalkay qof caadi ah, haddii kale ma ku cafin doono. Sixiroolaydii ayaa isku dayday in ay Raage ka dhigto dhagax, laakiin waxa uu adeegsaday gaashaankiisii si uu isaga difaaco. Marna waa uu u gagambinayay sixirkeeda. Marar badan oo ay isku dayday in ay ku waxyeelayso sixirkeeda, Raage waxa uu adeegsanayay gaashaankiisa ilaa ugu dambeyntii uu ka guuleysto. Taas ayaana sababtay in walaalkiis iyo faraskiisii ay dib ugu soo laabtaan qaabkoodii hore. Labadii walaal ayaa si farxad leh dib ugu midoobay. Qasrigii ayaa iftiimay, taasoo keentay in Raage uu gudaha u sii galo. Raage ayaa waxa uu gudaha ku arkay gabadh qurux badan oo ku hurdaysa kursi. Isagoo eegaya gabadha quruxda badan ee qalanjo, Raage ayaa gabadhii jeclaaday. Gabadhii ayaa hurdadii ka soo kacday, iyadoo durbadiiba jeclaatay Raage, wiilka qalinka ah. Ugu dambeyntii labadii wiil ayaa waxay soo guursadeen labadii gabdhood ee ay jeclaadeen, iyagoo dib ula midoobay qoyskoodii hooyo iyo aabbo.